Japan boqoliyo konton sano ka hor waxay ka mid ahayd feudal systemkii beeraley waxba haysanin bal aan qiso idin soo naqliyo oo siharo nin la yiraahdo Dr. Tawfiq Al-Waaci ayaa xikaayada soo naqliya inkastoo dadka aan baadhaan hore u helin magaca kan laakiin waa nin say sheegayaan Samura family-gu waa middle class-ka qabaa'ilka kamida Japan waa qabaa'ilkii xaashiyada boqortooyada ku dhawaan jirtay ciidamada ahaan jiray Japan ilaa 150 sanadood buu cilaaqaad la lahaa wadankan Jarmalka la yiraahdo inta badanna saaxiibay hayeen yar oo dagaalkii labaad buu xagga Ingiriiska Japan ku yara raaceen waxoogaa dagaalkii koowaad baan leeyahay waxoogaa dagaalka koowaad iyo gagaarkiisii ayay Japanisku xagga Ingiriiska mareen laakiin inta kale Jarmalkay saaxiib ahaan jireen dagaalkii u dambeeyayna la wada jabiyay waxay isku dayday Japan arday bay diratay la rabo inay wax ku soo bartaan wadankaasi ninkan magacan le baa kamid ahaa baa la yiraahdaa Hamburg University buu tagay waxbarasho bilaabay group arday oo la soo diray waxaana loo soo diray aqoonta Germany in la soo raro Germany waa meelihii galbeedka hogaaminayay technology-giisa sideedaba technology-gu meelaha ugu badan oo ku faafay wadanka Jarmal baa ahaan jiray wuxuu leeyahay ardayga kani markaan master qaatay oo auto mechanics buu dhigtaa الميكانيكا markaan theory-yadii iyo books-kii iyo wixii ayay macmal bana geey waayeen buu yiri theory ma loo dhigaa nadariyaad jaamacad iyo book iyo drawing iyo waxun baan lagu wadaa buu yiri meel farsamaba waan arki waayay anna waxa iga go'an buu leeyahay inaan wadankii horumariyo wadankana buuga ku horumari maayo si aan yeelo waa inaan tala kala keenaa maalintii dambe ayaa waxaan arkay buu meel macrada oo injiino muharrak injiinaya talyaaniga lagu iibinayo 2 horsepower dabeetana injiin baan baabayacayo mushaharkaygiyo dhan buu la qiimo noqday buu yiri hal injiina baan mushaharkiisa siista habad injiinka ayd anigu ku faraxsan oo qaadi karayla ayaan gurigeygii la tagay buu yiri waxaan idhi buu kani waa modelka hadaan ku guuleysto waxa kalena waan ku guuleysan doonaa injiinkii buu miiska saartay halkan rafkan kala soo daadegay buu wixii buug lagu akhriyo jiray iyo wixii sawiro injiinka warrabay iyo wixii oo dhan waxaan ku tala galay buu yiri injiinkaasi inaan furfuro bool kasta iyo bir kasta meel dhigo bir kasta sawiro sideeda u dhigo kala wada daadiyo kadibna aan dib isugu wada celin karo dabeetana aan mar kale ka shaqaysiin karo si xirfadii ku jirto xabad walba u sawiray mid walba meel u dhigay waday 3 maalmood bay ugu qaadatay uu yiri inaan kala wada furfuro oo dabeetana dib u xidhxidho oo dabeetana kiciyo injiinkii waxaan ku guuleystay buu yiri inuu kaco aad baan u farxay buu yiri marka kaahinkii watay yani dhaqanka iyo hidaa iyo waxoodan in la ilaaliyo inagu intaynu diraan bay lumaane kuwan la diray waxay iyagu Japan ku dartay kaahin xataa dhaqanka iyo diinta iyo waxaan u ilaaliyo la socda kaahinkii baan u yimi buu yiri waxaan idhi buu yiri maanta waa soo guuleystay maxaad samayso waxaan idhi buu yiri waxaan soo furfuray hal injiina baan intaan midmid u kala tuuray oo meelaha dhigay ayaan dib u farsameeyay dabeetana dib baan u xidho waan ka shaqaysiiyay shaqaadu fiican baad qabatay buu yiri laakiin waan ku tijaabinayaa injiin mu'attal oo kharibmay baan ku keenayaa buu yiri ka haddaad ka shaqaysiiso markaas aynu wada hadlaynaa oo baxay buu yiri injiin kale uu keenay oo qariban furfurkaas buu yiri waxa xun soo saar oo dabeetana samee injiinkii baan sawiray waa kala wada dhigdhigay midba meel baan dhigay 3 birood oo cunmay oo dhibaato gaadhay baan ka soo dhaxelay buu yiri 3 birood baan dubbe iyo mubaradka fortune inta tagay birta marna la qaboojiyo marna la tumo ayaan soo tuntay buu yiri 3 birood baan soo tuntay oo kuwiyo kala ah ayaan soo sameeyay buu yiri dabeetana dib baan u xidhxidhay isna waan ka shaqaysiyay tan 10 cashay ugu qaadatay buu yiri maalmaha uu shaqaynay wuxuu leeyahay hal mar baan wax cunaa in yarna waan seexdaa inta kalena baan kuma dul fadhiyaa 10 maalmood bay tan igu qaadatay buu yiri inaan dhameeyo
iyana waan dhameeyey dabeetana waxaan idhi buu yidhi waxa la yidhi buu yidhi master degree baad qaadatay waxaad gashaa doctoraa professorkayga sii wad buu yidhi may doctorkaa dooni maayo baan idhi buu yidhi jabaan baa ay sugaysa jabaan si aan wax uga noqdo injiinkan hadda gartay sida la isugu xidhxidhay dee birtiisa waa inaan samayn karaa birtiisa saan u samayn karana waa inaan warshadaha birta dhalaaliyo tagaa kuwaana wax layskuma barayo shaqaale ka noqo xamaal baan bilaabay buu yidhi ka shaqeeya warshadahan birta warshadahan lagu dhalaaliyo ironka almuniyamka biraha warshadahan dhalaaliya ayuu xamaalnimo ka bilaabayo inuu cumaalintan dhuxusha ku gurtiyo waxaan inuu noqdo ka shaqeeyo 8 sannadood buu waxaa waday oo uu baranayay sida birta loo dhalaaliyo dhagaxa inta la soo qodo sida loo kala dhalaalin karo bir loo kadib buu noqday Nagasaki buu tagay boqorka maqlay ninkan iyo arrimuhu wado 5,000 pound buu soo diray buu boqorkii Japan oo leeyahay waxaad u baahantay qalab soo siiso qalabkii warshad kaamil baan soo siistay buu yiri waxaan ku qaadabaan waay mushaharkaygii baan haddana uga dhigay buu yiri nooli dabeetana qalabkiisii buu la yimi Japan markaan imi baa la yidhi buu yiri boqorka raba inuu ku soo dhaweeyo ku yimaada may boqorka arki maayo buu anigu aan qalab sidin muharrakaat anigoo sida mooyaane iima cuntanta wali in boqor soo dhaweeyo warshadiisii yareyd buu rakibtay fortune-kiisii iyo birihiisii buu dhalaaliyay wixiisii buu waday muddo kadib 9 sannadood markuu rafanayay waqti ku dhadhow say sheegayaan ayuu wuxuu soo saaray injiinadii koowaad muddo markuu rafanayo ma 9 injiin buu soo saaray isagoo 9 injiin wata buu boqorkiisii la kulmay waxay dhahdaan waa gaalkani waa ninkii bilaabay ama raggii tiirarka u taagay industrialka maanta ay leedahay maxay Japan ay leedahay Japan reer galbeed intay u yimaadeen ugama deeqo cilmiga loo wada reer miyiga tiiniya beerahan ka kaalayo technology-ga bartaacidi kuma oran laakiin iyaga u dhididay maxaan tan uga jeedaa qofka han kale waxa uu rabo uu xaqiijin karaa qofku hadduu han leeyahay ولذلك بقى إلهي قرآن كوحينا ليه سيقول نبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل بقى نبي قال ويري والصبر يعني إنه لا شو عقبات بيلا ذي مركب كلها هم بعض يالنيسا معناه ما هو واحد قبطة بريح أنت هذا رقاقضون إنه يسوي يسوي حاجة يسمعها 1000 مشكلة بقى كاهر إيمانية أنت أسوأ عرقلات بقى إيمانيسا لكن Soomaali دي هوري محي ورن جيرين وحي محي رقنا وقعه ربنا أقبله والرموبان يعني حتى نيكا الريربية جاء الصوماليات وحو الرميسنا نيكا وحن نيكا الله يداخده هدو ربكي كاشدو ينان مستحيل جيرين ساسو الرميسنا يعني إنو حقيقين كرا وحا ودونيو إنو هن ليو وحن وقنت دايما مهمة إلهي ساسي دراد النبي سيوحكو لي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل والصبر سيدي والصبرين أولو العزم من الرسل وحا قرآن كوين بريا إننا ميلاه هوسي شوغين امحالي يدي واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من المتقين ما هذا وواجعلنا للمتقين إله كوة إله كعب سيدي إمام نوغدك hormoodka naga dhig weeyaan gadaasha kuwa haysta ilaahu naga dhigine ahlu taqwa hormoodkiisa ilaahu kuwa naga dhig ilaahi wuxuu leeyahay fastabiqul khayraat fastabiqu baratama bala leeyahay baratama maxay khayraadka ilaahi wuxuu leeyahay saabiqu saari'u yusari'una fil khayraat wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun لمثل هذا فليعمل العاملون إلهي وحينا لي ديري وحقه هرتقى نبينا عليه الصلاة والسلام وحينا المامية إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى ورإلهي حتى هداوه ويدي سنة إلهي محي ويدي استباليدي فردوس الأعلى إلهو جنة يقال يقولها ورنه إلهو جنة تيدا سري يقاده يعني النبي محمد هانكو بريا صحابتيس وحلي حتى هدا جنة إلهي ويديسانيسو جنة ميله هذا سكها دلبان محاد كدلبتا إلهي فردوس الأعلى ولذلك النبي وحلي عليه الصلاة والسلام
acjasu الnaasi man cajisa can الducaa. tamartu markay kuu awood sheegato rabbi baa la kaashadaa. dadka waxa u liita buu nebigu yidhi ka maxay waxa u caajisaysan oo u liita ka ducadana ka caajisay. waxaynu u baahanay marka nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu leeyahay ina allaha yuxibu macaaliya اlumuur waashraafaha wayakrahu safsaafaha. ilaahay wuxuu jecel yahay arrinta kuweeda sarreeya iyo kuweeda maamuuska leh, wuxuu necab yahay kuweeda liitee hooseeya. asxaabu danaa'a inaynu noqonno maaha. alyad اlculya khayru min alyad الsufla. almu'min اlqawiyu khayru waaxabu ilى اllahi min almu'min الضaciif wa fi kulli khayr. اxras calى ma yanfacuk wاstacin biاllahi walaa tacjaz. nebigu wuxuu leeyahy alayh الsalaaةu wasalaam mu'minka xooggan qawiyu اliimaan qawiyu اlcaqiida qawiyu اlcamal mu'minka xooggan ayaa ka khayr badan baa la yidhi oo ilahay agtiisa lagaga jacayl badan yahay mu'minka daciifka ah. labadabana khayr baa ku jira mar hadday mu'miniin yihin. ixris calaa maa yanfacuk, waxa ku anfacaya ku dadaal buu nebi moxamed leeyahy alayh الsalaaةu wasalaam. wastacin biاllahi walaa tacjas, ilaahay kaalmayso oo abidka ha caajisin. nebigu wuxuu leeyahy in qaamat الsaaca wabiyadi axadikum fasiila. war qiyaamuhu hadduu dhaco adigoo geetimireed yar gacanta ku haya haddaad ka gaadhsiin karta ka gaadhsii buu nebigu leeyahy. ha odhanin oo qiyaamihii baaba dhacaya yaa cunaya.